أمير عامر kusoo dhawow Muqdisho Times. aad baa u mahadsantahay Elias. Wax ma nooga sheegi kartaa sababtii aad u timid Minnesota? Minnesota waxaan u imid waa horta meel aad Soomaalida ugu badan tahay oo markii qurbaha la isku soo qaado waa meesha kaliya Soomaalida aad ugu badan. taasi markii ugu horeyso midda labaadna waxaan u imid jaamacad halkan macnaha Soomaaliya gudaheeda loogu dhisay dhalinyarada Soomaaliyeed oo Maakhir la yiraahdo. jaamacadaasi ayaan taageerayay si oo waxbarashada Soomaalida inay kor ugu kacdo sababtoo ah waxbarashada waa laf dhabarka ummadda, waa horseedaha nabadda. marka taas ayaan sababteeda ahayd. Kartuunada aad sawirto waa Soomaali, waxaana ku qortaa af Soomaali. haddana dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay aad Minnesota joogtay, dhalinyarada kugu heerarsaneed ee sawiradaada jecel oo ku weydiisanaya inay isla kaa sawiraan waa dhalinyaro ku soo kortay Mareykanka oo aan Soomaali aqoon, aanan akhri aqoon. ma la yaabtay in dhalinyaradaas oo kale ay sawiradaada jeclaystaan? arrintaas horta waa runtaa waaye. waxaa markaas waxaa caddeynaya waxa waaye dhalinyarada halkaa ku kortay oo aan af Soomaaliga badi aan aqrinin waxay fahmayaan artiga wuxuu yahay sababtoo ah dadka waddanka joogo way ka horeeyaan ayaga. waa dhalinyaro oo wax garad ah wax bartay adduunka la socdaan. marka saasaad sababtay in markiin oo kartuunka ay fahmaan sababtoo kan dalka joogo badi kartuunka ma aqri karo soo af Soomaaliga garanaya macnihiisa ma fahmi karo, laakiin kan halkan ku dhashay ama halkan ku soo koray uu dareema kartuunka wuxuu yahay. artiga iskoolka lagu dhigaa marka waxayna ku faraxsan yihiin waa art Soomaali ah oo waddankooda sheegaya oo dhaqankooda ka hadlaya oo labiskooda wata oo nin Soomaali sameeyay. wax ma nooga sheegi kartaa macnaha ka dambeeya sawiradaada? sawiradeeda macnaha ka dambeeya waa wax toosin, macnaha waxa qaldan ayaan rabaa inaan ku saxo ama ku toosi ama wax ugu sheego dadka qaladka galaya. ma jirtaa sawir aad kala kulantay dhibaato badan? waa jiraan sawirro badan aa jiro oo handadaado iyo dhibaato dad si qaldan wax u fahmay. marka laakiin waagii hore ayay saas ahayd. hadda waxaan dareemayaa inaan isfahmnay ani iyo ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah ama siyaasiyiinta sababtoo waxa qaldan inaan tilmaamay ayay garteen. maana qof shakhsi aan abaaraya haba yaraatee ma jirto. ma jiraa dad kale oo kula shaqeeya oo ka caawiya arrimahan? adiga 80% anaa wado. dadka ila shaqeeya dad gaar ah maaha, waa dad ra'yigooda soo gudbiya oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah oo email ku soo dira. inta macquulka ayaan qaataa oo ila mid ah sidaan u fikirayo. inkastoo Soomaalida badi ahaan qabiil ku tiirsan yihiin, laakiin waa kan dhex dareemaa waxyaalaha qabiilka sheegaya. waxaan qaataa inta isku mabda nahay. ma jiraa wax aad ka baqato? wax i cabsi geli oo dadka ka mid ah ma jiraan. ilaah baan ka cabsanaa waqtigan dhimanayna ilaah baa og yaa. marka ilaahana wax dili kara. marka handadaado badan waa jiraan oo leegu cabsi gelinayo laakiin ma baqo. waxaa ii muuqda danta Soomaaliya. al-shabaab ma ku soo wacaan? al-shabaab handadaad badan oo ay soo direen email ah oo laakiin wax waddanka aan ku noolahay jooga ma ahayn, waa wax dibadaha jooga. email badan oo handadaad ay soo diraan iyo maxkamada ay saaraan mar walba, laakiin macnaha wax gaar ah ayaga oo aan shakhsiyaad oo gaar ah aan tilmaamo ma jiro, laakiin qaladkooda ayaan tilmaamaa. ma jiraan qolo Soomaali ah oo aadan ka caraysiin? maalinba macnaha qolaa caroota qolaana faraxda. qoladii maanta faraxda ayay haddana beri caroonaysaa. marka waxay tilmaamaysaa miisaanka dhexdhexaadka inuu yahay. sawiradii ugu dambeeyay ee aad sawirtay waxay ku saabsanaayeen abaaraha. wax ma nooga sheegi kartaa abaaraha Soomaaliya hadda ka jira? abaaraha horta ummadda Soomaaliyeed inay taabanaysaa xanuunka ay leedahay. waa dadkoodii waxaan dhammaanaya. marka ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa meel walba aad joogtiin wax alla wixii aad ku tari karto oo gargaar ah ummaddaas dhibaatoonayso oo ku filan maalintii macnaha $1. marka inay Soomaalina $1 wax kama dhibto. marka inay ugu gargaaraan walaalahooda si ay u badbaadiyaan. waa qaranka la sheegayo waa dadka midnimada iyo Soomaalinimada inay mideeyaan ee dadkaasi eegaan aan qabiil iyo waxba aan loo eegin. baahida markaas jirta
in xanuunkeeda la dareemo. haddii ay caawa ku fiirsanayaan dadka ku hardamaya siyaasadda Soomaaliya 20kii sano ee la soo dhaafay maxaad oran lahayd? waxaan dhihi lahay waa dadka xukumaysiin hadday dhammaadaan bal yaa kursigaas ay u fadhiisanayaan. marka horta dadka badbaadiya siyaasadda had dambeyso waqtigan waqti xun oo waxaa lagu jiraa xanuun badan oo Soomaali maalin walbo inta ciyaal inta haween inta rag ku dhimanaya dariiqa. marka siyaasadda dib inoogu dhiga horta aan badbaadino ummadeenni oo macnaha beri xukumayaan ayay taalaa meesha. haddii ummadii ay tirtirmaan oo qaarna ay baxaan qaarna geedaha ku dhamaadaan ayaga haddii isku haraan maxay xukumayaan? marka waxaan kula talin lahaa inay markino oo ummadooda u soo jeestaan. waa mahadsantahay Amiin Caamir. adigaa mudan.